sidaad ogtihiin muddo 2 bilood ayaan ka maqnaa caasimadda inkastoo degmooyin tagay haddana laakiin caasimadda waa ka maqnaa waxaan malaynayaa maantay waa 2 bilood iyo 2 maalmood intaan maqnaa safarro Belgium iyo Brussels iyo London iyo meelaha waa soo marnay iyo Nairobi in badanna waxaan joognay caasimadda Muqdisho Brussels waxaan shirkii Soomaalida iyo dalxiisayaashan tagnay si fiican maaragtay ayaa ku soo dhaweeyay runtii lacag badan waana la siiyay haddayna soo gaarto ilaahay noo carfay London waa tagay iyadana maaragtay dowladda Ingiriiska iyo dad badan oo kale iyo jaaliyadda iyo kulli waa soo aragnay waa daawateen baan u malaynayaa hadda waxaan u malaynayaa warma seeganoo meesha la tago TV-ga idiin soo daayaan u malaynayaa haddaad fiirsataan waa fiirsanaysaan waa hubaaye magaaladan aad baa looga baahan yahay TV-yaal iyo receivers badan in la keeno u malaynaya ama cable TV in la keeno oo magaalada si fiican looga fiirso looga daawado intii badnayd waxaan joognay xamar oo Muqdisho oo saad ogtihiinba odayaashii Maxamed Xaashi iyo madaxweyne ku-xigeenkii Maxamed Xaashi iyo gudoomiyihii baarlamaanka oo xamar aad iyo aad dowladda federaalka uga shaqaysay madaxweynaha khaasatan waxaan u malaynayahay bishii hore 13-keedii ayaan heshiis isla gaarnay intii shirka Brussels la aadin bay ahayd madaxweyne farmaajo wuxuu ka soo saaray qoraalkaas inaad akhrisateen iyo inaad aragteen baan u malaynahay markaan Brussels ka soo laabanay runtii inaan toos annaga wada socono u imaanay ahayd way suurtageli weyday sababta ay u suurtageli weyday waa waxyaalo iska hadda majhuul ah laakiin laga jiba gaari doono hadda lafteeda laba kala ma istaagin arrintu weli way socotaa haddii aan ku guulaysanana ahla wasaal haddaan ku guulaysan weynana oo heshiis laga gaari waayo arrintaasna waa ka tashan doonaa insha allah waxaan kale oo aad iyo aad idiin sheegayaa runtii dowladda federaalka aad iyo aad bay maaragtay noo gacan bixisay wax mucaawanaa kama hayno dhaqaalaheenna kama hayno marka hadda ka bacdi inaynaan ku tashan aan isku tashanno sidaan canshuur abuuran lahayn sidaan dalkayga u dhisan lahayn aan ka shaqaysan wax aan sugno hadday meel caalam ka timidna dowladda federaalka dhexda u joogto haddii canshuur la qaadayna la siin lahaana dowladda federaalka haysa noomana gacan furnaa marka inaan isku tashanno oo aan hadda ka bacdi sidii aan wax aan abuuranno u quni lahayn aan ku fakarto meelo badan baa la maray wax badan baa la soo maray 2 bilood iskaashin badan iyo muran badan iyo hadal badan baan hayn ilaa haddana wax ka suurta galay oo quman ma jiraan weli kama naarshiguna waa sii wadi doonaa laakiin ma rabo inaan hadda hoos ugu dhaadhaco waxyaalo badan waqti baan haysanaa inaan isku tashanno isku tashan samayno ayaa loo baahan yahay kaliya aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan rabaa shirkii Kismaayo waa la aadi doonaa shirar kale waa soo socdaan waxyaalo badan oo maanta aan oolin unbaa iman doona insha allah tawfiiq baan ilaahay ka rajaynaynaa in ilaahay maaragtay khilaafka iyo dhibaatada aan ka baxno ayaa ilaahay ka rajaynaynaa ilaahay naga saaro annaguna aan isku tashanno muruqeenna iyo maalkeenna waan ugu filaynayn asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu